kulan lagu taageerayo go'aankii ay isku casileen taliyayaashii gobolka Sanaag ugu magacaawna Somaliland ayaa lagu qabtay magaalada Badhan ee gobolka Sanaag sida faafahinta warkan uu ku eegayo wariyaheena Xasan Dhagayaro nooga soo warramo magaalada Badhan ee gobolka Sanaag haweenkan oo lulaya calanka Soomaaliya iyo kan Puntland ayaa waxa kulankan ay ku yeesheen xarunta wasaaradda haweenka ee degmada Badhan waxay ku taageereen go'aankii ay isku casileen taliyayaashii gobolka Sanaag ugu magacaawna maamulka Somaliland oo iyaga iyo ciidamadii ay hogaaminayeen ay ka soo goosteen maamulka Jeeganta ayna ku soo biireen ciidamada difaaca dowladda Puntland ee gobolka Sanaag kulankan oo ay soo qaban qaabiyeen haweenka magaalada Badhan ayaa waxa haweenka ka qayb galay waxay shacabka Puntland ugu baaqeen in la adkeeyo midnimada iyo wadajirka Puntland iyo Soomaaliya waxaana sidoo kale haweenkani ay fariin adag u direen maamulka Hargeysa idan dansiga qaawan ku haya xuduudaha gobolka Sanaag dhibaatana uma baahnin waxaanu u baahanahay nin walba dal balaaran buu haystaa dalkiisa inuu difaaco inuu ku ekaado annagu dalaalanahay kuma duulo ilaa iyo gobolka Sanaag waa leenahay sabab waxaan noo noqoto kaaya isu leexisay hooyadii soo laaya ragii la yiri walaalihii soo laaya naagihiinii soo dila inta soo gubtaan gurigiinii lacag baan idinku siinaya war soo gub gurigaagii waa noqon weyday asaagana ma nin ragina wuxuu qaadan karo maaha adna ma qaadan kartid annaha igu dayn musabixiyo idna gumaysatana ma jirto ku bishaarayso Soomaaliya gumaysi ay soo martay annagu ma soo marinaan gumaysi ma aanan soo marin gumaysi qoysna ka qaadan mayno Soomaaliyeedna gumaysi ka qaadan mayno Ingiriis ka hor baa dadku Soomaali ahaa oo deegaanka la kala lahaa Ingiriis ka dibna dawlad baa la noqday qaran oo qaran Soomaaliyeed oo sharaf leh haddana qaran baa leeyahay burbur baa dhacay laakiin waa laga baxaya Muqdisho ana la ka xukumaa Garowe ana la ka xukumaa anaga Ingiriisna ma xukumaano mana dhalin dhaxalna naguma leh dhulkanna Ingiriis gumaysi yimi buu ahaaye dadkaas ku dhashay oo ka soo baxay oo dhulkan ku abtirsada ma ahayn magaca Somaliland isaga leh haddaad idinku qaadateen deedinku ma haysano laakiin daaya oo hanagu darsanina salaam war xayle Xuseen iyo xayle mar haday xaqiiqarteen Xuseen iyo xayle mar haday xilkii dhigeen xumaanti daadsheen wanaagina xeeriyeen dalkiina xasuuqa xashooy haday dhaheen xarbi dagaal iyo haday xiisadii jabsheen salaan xurmo badan leh hawadan u xulinaya ducana lagu xiriye rabbi xaakini ha xafido waxaan Somaliland idin su'aalaya haddaad Soomaalinimadii ka sara kacdeen sinaantii iyo midnimadii sun idin la tahay maxaad u sariiranaysaan rag idin la siman haddii Sool iyo Sanaag sarac kuugu yahay annagu Soomaalinimadanu saacidna haddii aadan sama ku daaqaynin orodka soco ninka la yiraahdo dhakool oo baarlamaanka Somaliland kamid ah oo nin dhulbaahanta oo faarax garaada halkeebu jiifa meeshu jiifa moogtii oo gurigiisa habeen madow loogu dhacay gurigiisa inta loogu dhacay aan xataa isaga xasaantii laga qaadin oo darajadii laga dhigin xabsiga dhex jiifa Somaliland ma dawlad bay sheegan kartaa ma dawlad bay sheegan kartaa ma dawlad noqon kartaa war biriqaatu haday besa ka gurteen waxba buunbuuni wadankaygu waa Puntland waxba buunbuuni wadankaygu waa Puntland intaana ku weeqin warar kaga dib uga noqo intaana ku weeqin warar kaga dib uga noqo hadda waan toobin waran badhexdeenayaan Muuse waxaan
leenahay sidii aad mooday maahe wasaanka yeela dalakan waxa leh dad baa leh aan la mari karin dad baa leh aan gumaysi qaadan oo kii gaalka cadba diiday ingiriiska bay diideen gumaysi madowna qaadan maayo wasaa maaha meeshaan u soconno waa fahmaynaa iyo waxayna soo saaray waxa weeyaan waa wadanimada muuqata iyo dawladda cusub insha Allah bismillaahir kariim waxaan rajaynaynaa inay noqoto gobolkeenu gobol maxay awalba amni baynu nahay nabad baanu haysanay laakiin nabadii taalay iyo maxay amnigeena saan u sii adkaysan lahayn baynu insha Allah baynu tarona ay noo baarigaysaa xasan ismaan aadan xasan dhegeeyay TV-ga iyo idaacadda dawladda Puntland Baran